habeen walba Soomaalidu taariikh ayay ka dhigaysaa aaladda TikTok-ga. waxaad moodaa inay dadweynaha kale ka tiro iyo tayo badan yihiin. lamaanaha romantiga iyo naxariista ku caanbaxay ee Amira iyo Aadan oo difaacaya calankeena buluugga ah ayaa guuldarro garka u geliyay muwaadin Itoobiyaan ah oo aaminsan in dawladdiisu ay ku guuleysatay dagaalkii Soomaalida iyo Itoobiyaanka ee dhacay 1977. Amira iyo saygeeda Aadan oo af iyo adinba ku dagaalamay ayaa $30,000 ku sameeyay saacad gudaheed, waxayna ku soo xereeyeen lacagihii ugu badnaa oo hal mar laga sameeyo tibinta tooska ah ee lagu tartamo ciyaaraha TikTok-ga. Maanti Mambis, TikToker Itoobiyaan la jecel yahay qoobka ciyaarkiisa, ayaa doonayay inuu sharafta Soomaaliya dhulka la galo, ugana cadgoosto guuldaradii ciidamadoodu ay kala kulmeen libaaxyadii geeska 44 sannadood ka hor. wuxuu ku faanay inuu ka dhashay dad tiro badan oo Soomaalida ku laba jibaarma, kuwaasoo leh taariikh fog kuna garab taagan inuu guul ku gaaro calankooda awgood. Amira iyo Aadan oo garab ka helaya taageerayaashooda oo ka caraysnaa gabadhfalladii ciidamada Itoobiyaanku ay ka geysteen magaalada Muqdisho muddo 13 sannadood laga joogo, ayaa ballan qaaday in haddii kulankan laga adkaado aysan mar dambe tartan TikTok-ga ku matali doonin Soomaaliya, maadaama ay kalsooni ku qabaan dadka Soomaaliyeed oo ah geesiyaal sharaftooda ku difaacda cudud iyo ciidanba midii ay noqoto. ninkani dhowr muuqaal oo uu soo geliyay bartiisa TikTok ayuu ugu habarwacday Itoobiyaanka oo dhan si uu uga adkaado lamaanaha Soomaaliyeed, balse wixii uu filayay wax ka duwan ayaa dhacay. bilowgiiba hadiyado lacag ah ayaa sidii roobkii ugu hoobtay akoonka Amira, halka Itoobiyaanka Maanti Mambis uu waayay gurmad ku filan oo uu kula sii loolami karo lamaanahan, waxaana gabagabadii uu aqbalay in laga adkaaday isagoo wajiga ku qortay Soomaaliya 1977 oo ka dhigan Soomaaliya ayaa heshay guushii dagaalkii ay la gashay Itoobiya. tartanka live TikTok-ga oo markii la soo kordhiyay ku bilowday baratanka qabaa'ilada Soomaalida ayaa markan xuduudaha ka gudbay, waxaana la arkayay in maalmihii ugu dambeeyay in dhalinyarada Soomaalida ahi ay guulo wax ku oola kala soo laabanayeen furimaha TikTok-ga. inkastoo Soomaalidu aysan ka badnayn dadka Jarmalka, Talyaaniga, Masaarida iyo Itoobiyaanka, haddana xidigihii matalayay ayaa guulo soo hooyay kolkii ay $10,000 ugu deeqeen shacab Soomaaliyeed oo ilaashanaya qabka qarankooda. marka laga tago Amira iyo Aadan, dhalinyarada caanka ah sida Shiina Culey, Bilaal Bulshaawi, Cabdulqaadir Boos iyo Kabtan Ayuub ayaa $10,000 ka macaashay gameeka tooska ah ee TikTok-ga iyagoo difaacaya qadiyado kala duwan. guushii ugu weynayd ee Soomaalidu ay ka gaarto dal kale loolanka TikTok-ga intii uu socday ayaa lagu sheegaa inay tahay tii u dhaxaysay iyo Fernandian oo ah nin u dhashay Jarmalka iyo Shiina Culey. 15 jeer oo la ciyaaray gamekan, Soomaaliya ayaa guul soo hoysay, halka 80 milyan ee Jarmalka ahi ay la hoydeen guuldarro ay u qalmeen. tartanka live TikTok-ga ee dhaqaalaha badan laga macaasho waxa lagu kala adkaadaa qiimaha hadiyadaha ay ku siiyaan taageerayaashaadu. mararka qaar xujooyinka la isku xirto iyo hadba sida aad isku furdaamiso ayaa guuldarro ama guul farta ka saari kara, waxaana $10,000 ee hadiyadaha ah qaadan doona qofka guuleystay, halka shirkadda TikTok-na ay canshuurteeda ka goosan doonto. ilaa goormee noqon doontaa ma liibaanihii lagu liibaanay? haddaba iga hoofuraha guushii aad muddada goobaysay. haddaa hami laheedoo han iyo higsigaagu yahay haldoor ganacsiga ku tegay, ha yeeshee aan u helin fursad hadafkuu lahaa, waxaan kuu hayaa hindisaha dhabta ah higsiga ku siin lahaa hiil Forever Living Product. haddaba waxaa jira habraac hannaan laga rabo qofkii hayaan raba guula dhala, ma tahay qaangaar hanloo hufnaan lagu hubo habsami, bulshada ruux ku haysta sharaf, quluub hanan kara mug weyn, hortabintaa aan sharaxay haddaa tahay ruuxantiyey. Forever Living baa hubaalhankaaga dhabaynaysee, ku hiro oo hore u gaar dhaqsaad noqon ruux hodmo, weliba maalqabeenta dhahay ee haddaba iska diiwaan geli Forever Living Product oo aad ka mid noqon karto adoo jooga meel kasta oo daafaca caalamka. diiwaangelintu waa lacag la'aan, waxaad dalban kartaa badeecooyinka tayada leh ee shirkaddu ay soo saarto. dalabka ugu fiican ee darajada koobaadna waa $380 ama $500. haddaba kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.